بسم الله الرحمن الرحيم وقررنا أنيقو كهالليا مقع الدولة الصوماليات يا شعب الصوماليات أنا فيين كواهي وحانو عمبارينينا إريدا ugu adag wax aan bini aadan lagu tilmaamin karin lagu cambaareeyo ficilka ugu xun wax sameeyay lagu cambaareeyo yaanu ku cambaaraynaa ficilka ka dhacay afkooye lagu waxyeeleeyay loogu xadgudbay laba caruura oo sabi ah waxa halka ka dhacay laguma sheegi karo waxa dadka qaarkiis ku tilmaameen ay yiraahdeen waa kufsi وتعدي يوارر لو جيستي مقع الصوماليات لو جيستي شعب كالصوماليات قف كستا او شعب كالصوماليات ايا وجهيسا عيب لغو دغاي حمان لغو دغاي wax bini aadan ka adduunku isweydiiyo Soomaalidu waa nooc bini aadan oo noocee ah ayaa lagu dhigay qof kasta oo Soomaaliya kulligan waynu garanaynaa in waxa halka ka dhacay aanu kufsi ahayn ee uu yahay weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliyeed uu yahay magac dil qof kasta oo Soomaaliya lagu sameeyay la doonayo in dadka Soomaaliyeed laga dhigo dad aan bini aadan caadi ahayn la doonay waxa sidaas doonaya maaha Soomaali damiir xun baas la adeegsaday Soomaali damiir xun baa la adeegsaday soddonkii sano ee aynu ku jirnay dhibaatada iyo dagaalada sokeeye bilaash gumaynu jirin dad magaca Soomaaliyeed markuu dira burcad badeed oo markuu dira argagixiso oo markuu dira kufsi oo mar shacabka Soomaaliyeed isku diraan ku dila waa dad aan wax maqlin oo xayawaan ah oo isdilaya ayaa maal galiyo waxa sameeya oo dad Soomaaliyeed soo adeegsada dawladda Soomaaliyeed waxay amraysaa ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan ciidamada qalabka sida maamulka heer qaran iyo kan degmada afgooy in gacanta lagu soo dhigo dadkii ficilka ka dambeeyay iyo kuwii maalgeliyay ee u qaadanaya magaca Soomaaliyeed inay ku baabiyaan way la soo qabtaa waxaanu ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka u sheegaynaa in waxa halka ka dhacay aanu ahayn dhaqan Soomaaliyeed inaanu ahayn waxa dadka Soomaaliyeed u taagan yahay diiniyan dhaqaniyan iyo dadnimo intaba waxaanu u taaganahay inaanay ahayn waxaanu la xanuunsanaynaa caruurta Soomaaliyeed sabiga Soomaaliyeed ee la dhibay waxaanu la xanuunsanaynaa qoyska culimada Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed waxaanu doonaynaa inay ka hadlaan ficilka bahalnimada ee magaca Soomaaliyeed lagu dilayo loo arko inuu weerar yahay ee aanu ahayn ficil shacbi maaha waxa la helayaa hadii si fiican loo baaro hay'adihii maalgeliyay la helayaa horay u sameeyeen gabdha yar oo caruur hoosaas oo kale u sameeyeen waa ficil soo jiray oo magaca Soomaaliyeed lagu dilo Soomaalidu waa dad diin leh waa dad dhaqan leh waa dad bini aadanka adduunka jooga kuwa ugu ixtiraamka badan ugu deeqsiisan ugu wanaagsan laakiin wala baabiinaya magacooda dawladdu dadaalka ay wado shacabka Soomaaliyeed dadaalka uu wado ee la doonayo in magaca Soomaaliyeed aan wanaajino ayaa lagu baabiinaya mar labaad waxaan amrayaa
anigoo ku hadlaya magaca dawladda Soomaaliyeed in ciidamada qalabka sida oo dhami u arkaan ficilka halka ka dhacay ficil weerar ah baaris aan xad lahayn lagu sameeyo la soo qabto wixii sameeyay xayawaan maaha xayawaanku waa wax qiimo leh weeye wuxuushka la soo qabto cidii soo dirtana la soo qabto waa la soo diray ogaada shaki igama jiro shaki yar igama jiro in dadka la soo adeejiyo horena kuwa kale badan oo saas la adeejiyo waa ka xunahay dawladahan gabdhaha yar yar waa daryeelina dawladahan iyo qoyska waana la xanuunsanayna